aan u mahad celina oo boqolkiiba boqol u mahad celina Hormuud Foundation shaqada wanaagsan ee noo qabteen iyo gargaarka insaanimo noo sameeyeen laanu ma aaminsano qof kasta oo Soomaaliya ku nool oo standardka Soomaaliya ku nool inay ka bixi karto 2 maalin isbuuci oo sifeyn ah baaritaan bil joogto ah iyo maalin walba oo garabka laga siina qofka cirbad aad u tayo wanaagsan kilida dhaqista kaliya kuma sinaane cirbad khaliya jirta oo la gada karin labadaas kale ma hiraan maxaa yeelay haddii bukaankii la dhaqo cirbadda uusan gada karin dhibkeeda leedahay markay dhiiggiya tagay meesha mugulay ka dhaqmadooda ku bilaaba oo sahan lay sameeyay waa rest waa hurday waa cabay waa fadhiista wili jar lay uruxi jir aniga waxaan nahay bukaankan Xasan Xaashi Saacad gabadheeda waxa la dhahaa Raaxa Ali Cadow dhakhtarkan waxaan ku soo biirnay 2020 bilowgeedii hooyo waxay haysatay dhiikar iyo sokor muddo la noolad 25 sano camal ah 2018 hooyo waxa ku dhacay stroke waxa xirmay xidid maskaxda kamid ah xirmay waan iska haynay dig feeran geynay alxamdulillah daawo loo soo qoray hooyo daawada isticmaashay daawada markay isticmaashay hooyo hadana kaliya shaqeyn waayeen markii marxaladeeda inay bilo dhakhtar ku jiray noqoto oo xamar oo dhan asleeyahay dhakhtar noo dhiman ma lahan waxaan go'aan ku qaaday inaan dhul gadano aan qaadano Hindiya waan tagnay Hindiya markaan tagnay stroke hadan hooyo ku dhacay Hindiya mar labaad ICU Hindiya ka galnay dhaqaalihi aan haysana weesho naga soo dhamaaday ayadoo yar oo 16 jir ah gabadha lagu sheegay dhiigkarkii kadib muddo 5 sano ah way iska socotay caadiye iska ahayd reerkeeda iska dhaqanaysay 2 sano kadib oo 5 sano buuxsantay gabadha dhiig karaa ku kacay dhiigii waxaan geynay kalkaal waxayna dhaheen muxuu ahaayay kaliyaheeda gabadhan waa fadhiyaan in la dhaqa waay waa ka diidnay haddana waxaan tagnay Shaafi waxay dhaheen muxuu ahaayay Shaafi waxay dhaheen cirbaday ku dhufteen dhiigii waa degi waay gabadhan haddaan dhiigaan kaliyahan la dhaqin madaxuu ku shubayaa ay dhaheen waana halis waaye marka in la dhaqo waay dhaheen sidii aan markii dambe ku yeelnay Xaawa Cabdi ku geynay lagu dhaqay muddo 5 bil ah hooshaaneet yani ku soo dhex jirnay Xaawa Cabdi ilaa iyo dalmar 2 bilood 3 bilood Xaawa Cabdi markii dambe adigoo isniintii hadda aad u dambeysay wallaahi qarashka lagu dhaqay aan weynay marka isniintii waayba ka baaqatay dhaqitaankii Hormuud codsi geystay muddo adiga 20 bir camal aan sugaayay alxamdulillah isniintii ay aqbashay aad iyo aad ugu farxay Hormuud Foundation ayaa waxaan geystay codsigii markaan geystay waa la ajiibay ilaahay ha ajiibay way ajiibeen waa la soo dhaweeyay isbitaalka la igu soo dhaweeyay aqbalkii baa la siiyay waa la aqbalay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin hadda maanta ma fakarayo awal markaan maalinta aan wax waayo waan fakari jiray waa walwali jiray hadba qof baan ku carari jiray aan ku cataabi jiray hadda maanta anigoo niyad degan leh oo wanaagsan caafimaadka xataa waxa ii kordhay waxa iigu kordhay niyadda wanaagsan barnaamijkan dadka ay kaliya ka fariisteen ee lagu caawinayo waxaan bilownay muddo adiga hadda aan filayo ilaa iyo inay gaarayso 6 sano 7 sano waxayna ahayd baahi weyn oo ka jirtay dalkan Soomaaliya kama jirin adeegan dialysis la yiraahdo ama dadka ay kaliya fariistaan kaliya loogu dhaqaayo qalabka ma jirin isbitaal sameeyeen ma jirin isbitaalka ugu horeeyay oo si qalab fiican ah oo isku toosan keena wuxuu ahaa isbitaalka Ex-Digfer hadda loo yaqaano isbitaalka Erdogan waxaan qaybta dialysiska dadka kaliya loogu dhaqo aan ku kaalmeynay 5 mashiin aan uga soo iibinay dalka dibadiisa awalan horta nin macallin ma aha dugsi dhigayay waa dareemi kartiin ninka macallinka hadduu jirado dugsigu waa eber taas ka soo gudub anoo marka iska dhibano jiradan igu dhacday waxaan tagay baalkii lagu bilaabay digfeer haddaan aan tagay kharashaad waay sidee aad ogtiin kharashaad waay lacagaa la baxsha oo qof kasta og marka kharashaadkii aan bixi waayey
wallaahi horta guud ahaan hadda marxaladda hadda aan kula hadlayo dadka hadda loo sameeyo waa 87 qofood. dabcan qaar kamid dadkaas waxaa jiro wadanka ka safray hore, qaar waxaa jiro ka bogsaday, qaar waxaa jiro geeriyooday. annaga markii hadda oo sanadkii la fiiriyo hadda waxaa ku baxayso ilaa iyo lacag cagaagaynaysa $500,000 ayaa sanadkii ku baxaysa. marka waa runtii culays aad u weyn oo dadka Soomaaliyeed aan rabno inaan la qaybsano. qof xanuunsan oo xanuunka hayaan aan awoodi karin inuu iska daaweeyo in la caawiyo oo gacan la siiyo, waxaan isleenahay wax ka wanaagsan malaha. wallaahi alxamdulilaahi horta ilaahay aan ku mahadinaynaa, maxaa yeelay qof wasaq ku jirto xanuunku haya ayaa asigaa dareemi kara. maxaa yeelay haddii lagu dhaqo waxaad dareemaysaa fudeed, nashaad, badarkii aad cunto, hurdadiyo aad hesho. keenaya xaalkayga ilaahay ogaysa u ahay. alxamdulilaahi shukri. hormuud foundation khayr allah siiyo heerka haddan joogay soo gaarsiisay, meel hoose iga keentay. haddaan ilaahay kuu diidin wax qarashahoo la iga qaada ma jiraan, tabarucaada laygu sameeyey. waxaan si aad iyo aad u ammaana oon mahadcelin buuxda u diraa oo aan la soo koobi karin shaqaalaha ka shaqeeya qaybta kalisifaynta dhammaan. amba kii waxaaqay ha ahaado, amba kii ka shaqeeyhayey mashiinka, kulley wallaahi wax aan dhiba aan kala kulno male. aadan noo soo dhoweeyaan kan ku howlan mashiinka aad iyo aadow noogu dadaalaa. waynu mahadsan yihiin khayr allah siiyo.